kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka Somali TV anigoo Cabdirashiid Cali Barra ayaa idinla socodsiinaya wararka ugu dooroon ee ku daawanaysaan ayaa waxa ka mid noqonaya tiradii ugu badnayd caalamka ee laga helo caabuqa COVID-19 24 saacadood ee u dambeeyay ayaa waxa ay sheegtay hay'adda caafimaadku in ay kor u dhaafayaan 106,000 dawladda Turkiga ayaa ku hanjabtay in ay furayso xuduudaha uu dalkeedu la wadaago midowga Yurub afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegay sidaasi dawladda Mareykankuna waxa ay deeqdii ugu horeysay ee mishiinada oxygen-ta dhaliya gaarsiisay dawladda Ruushka qalabkaasi ayaa waxa waday diyaaradaha dagaalka ee ciidamada Mareykanka isla dalka Mareykanka ayaa waxa uu la qabatayn hor leh ku soo rogay shakhsiyaad u dhashay dalka Iran oo uu ku jiro wasiirka arrimaha dibadda ee hadda ee dalka Iran qodobadaasi ayaa daawadayaal kamid ah kuwa ugu dooroon ee ku daawan doontaan wararka Somali TV imikii haatanna waxaad ku soo dhawaataan qodobadaas iyo kuwa kale aynu ku bilownaa dawladda Turkiga ayaa ku hanjabaysa in ay furayso xuduudaha ay la wadaagto midowga Yurub afayeen u hadlay wasaaradda umuuraha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegay in dalkiisu ilaalo ka ahaan doonin xuduudaha midowga Yurub ama aanay ahaan doonin xeradii qaxoontiga ee Yurub dawladda Turkiga ayaa horaadkii sanadkani waxa ay furtay xuduudaha ay la wadaagto midowga Yurub waxaana xuduudahaasi ka gudbay qaxoonti aad u tiro badan dawladda Turkiga iyo midowga Yurub ayaa heshiis hore waxa ay ugu galeen in qaxoontiga lagu hayo dalka Turkiga isla markaasina ay kharashaad ka bixiyaan dawladaha ku abtirsada qaaradaasi Yurub madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland mudane Siciid Cabdilaahi Dane ayaa maanta si rasmi ah isaga diiwaan geliyay urur siyaasadeedka ka madaxweynaha ayaa xarunta ururka waxa ku soo dhaweeyay guddoonka gumeel gaarka ee ururka iyo xubnaha ururka qaar ka mid ah waxaana uu madaxweynuhu u gudbiyay qaybta diiwaangelinta halkaas oo madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdilaahi Dane uu si rasmi ah isaga diiwaan geliyay maanta xubinimada urur siyaasadeedka ka hirgelinta haddaba nidaamka xisbiyada badan ee Puntland ay ku taamayso ayaa waxa ay ka mid ahayd qorshaha iyo nidaamka siyaasadeed ee madaxweyne Dane oo ololihii doorashada ku galay xilligii doorashada waxaana uu Dane 7 bilood gudahoodu hore ugu soo dhisay guddi doorasho oo ku meel gaadha isla markaasina waqtiga yar ay joogeen muujinayay shaqooyin aad u fara badan dawladda Mareykanka ayaa deeqdii ugu horeysay ee mishiinada oxygen-ta dhaliya waxa ay gaarsiiyeen dalka Ruushka iyo qalab kale oo ay sideen diyaaradaha dagaalka ee ciidamada Mareykanka ciidamada ayaa loo diiday in ay ka degaan madaar ku yaala waqooyiga Ruushka waxaana Ruushku ay horaadkii bishani Mareykanka gaarsiiyeen deeq caafimaad oo ay ka mid ahaayeen mishiinada oxygen-ta dhaliya masarka afka iyo sanka iyo qalab caafimaad oo kale Ruushka iyo Shiinaha iyo Turkiga ayaa dunida gaarsiiyay deeqa caafimaad taasi oo uu Mareykankuna dalalkaasi ku eedeynayo in ay ka faa'iideysanayaan dhibaatooyinka waqti xaadirkani taagan ee ka dhashay COVID-19 warbixin uu soo diyaariyay telefishin caalami oo laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa lagu eedeynayaa in cudurka corona lagu diyaariyay shaybaadh dhanka dhiigga oo ay leeyihiin ciidamada dalkaasi Mareykanka warbaahinta dalka Mareykanka ayaa iyaguna warbixin noocaasi oo kala soo bandhigay tan iyo markii uu bilowday cudurka COVID-19 dawladda Mareykanka ayaa cunaqabatayn hor leh ku soo rogtay shakhsiyaad u dhashay waddanka Iran oo uu ku jiro wasiirka arrimaha gudaha ee hadda cunaqabatayntan ayaa sidoo kale lagu soo rogay 3 shirkadood oo laga leeyahay isla dalkaasi Iran Mareykanka ayaa kordhinaya cadaadiska uu ku hayo dalka Iran tan iyo markii uu xukunka u qabsaday madaxweyne Trump afayeen u hadlay dawladda Islaamiga ee Iran ayaa cunaqabatayntan cusub ku sifeeyay inay caddayn u yihiin in uu fashilmay xayiraadihii uu Mareykanku hore ugu soo rogay dalkaasi Iran ugu dambeyntiina tiradii ugu badnayd ee caabuqa COVID-19 ee caalamka ayaa saacadihii ugu dambeeyay laga helay tiradii ugu badnayd sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka ee adduunka dadka laga helay maalintii shalay ayaa kor u dhaafaya 106,000 oo ruux caalamka oo dhan
iyada oo dadka cudurkani uu haya dunida oo dhan ay hadda kor u dhaafayaan ilaa iyo 5 milyan. Gudoomiyaha hay'adda caafimaadka ee adduunka ayaa walaac weyn ka muujiyay xaaladda xanuunkan ee dalalka dakhligoodu hooseeyo, isagoona dalalka hodanka ah kula taliyay in ay ka taxadiraan inay dib u furaan isu socodka dadweynaha. qodobkaasi ayaa daawadayaal gabagaba u ahaa wararkii Somali TV. anigoo Cabdirashiid Cali Barrana waan idinla socotiinayay. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.